سلطان محمد إبراهيم شيره وكميدا صلاديتا dhaqanka Soomaaliland oo wareysi khaas ah ku siiyay Kelson TV Hotel Starbucks ayaa bogaadiyay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka mashaariicda ay ka wada Soomaaliland gabi ahaantiiba suldaanka oo sidoo kale ka difaacay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka eedo uga yimid qaar kamid ah bulshada ku dhaqan deegaanka Dacarbudug bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ka salaamayaa oo bogaadin iyo hambalyo u diraya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta Soomaaliland iyo jidadka Cabdullaahi Abukar iyo wasaaraddiisa oo wax muuqdo qaranka ku suntan ka qabatay wadanka waxaan dhaadka qarsan karin ka qabatay wasiirkaasi waan howlkara waan shaqadiisa ka adag isagiyo waxaan halkan ka salaamayaa wasaaraddiisaba sidoo wax qabadku ku qabtay Soomaaliland oo ka hayo tulamaatiyo tu socotaba ayaan aad iyo aad ugu salaamayaa anigoo Suldaan Maxamed Ibraahim Shiraa anigu suldaankiisii baan ahay waxaanan xaal ka bixinayaa odayaasha ciidan sheeganayay oo ka soo hadlay degmada Dacarbudug oo ka arkay websaabadii TV-da koo ka hadlaya waxaasi waxaan leeyahay waa ceeb wax lagu hadlana maaha waliba ninka ka hadlayay waa nin ugaas sheeganayay ugaaskuna waliba ugaas cusub ah oo isku danay jiilka dabaanahay deeno loogama baahna inaanu shaashada waxa kan ilaahay ummadda wixii qaloocaynaan miyir qab ku toosina weeye laakiin shaashad inaanu soo taagnaa ceeb weeye annaga lafteeda shaabad bay ugu noqotay wasiirka iyo wasaaraddiisana xaal baan ka siinayaa anigoo Suldaan Maxamed Ibraahim Shiraa jiilka halka ka hadlayna waxaan leeyahay war horumarka dalka ka xumaanina la shaqeeyo wasiirka wixii cabashay sheeganaysan ka daya shaashadaha oo sidiisa Cabdullaahi Abukar waa nin qaaliya waa nin ku imanaya waa nin isku soo ka taagay waa nin aqoon-yahan dareemaya deegaanka soo jeeda waxaanu leenahay maanta laga bilaabo waxa ayaan dub loogu arkan shaashadaha inta hadii aad cabanaysaan wax sheeganaysaan waxa tiri ugaasku wuxuu yiri baabuurtiisi baa ka shaqeysa Cabdullaahi Abukar koon xilba haynin ayuu ganacsada ahaa oo shaqeystaa xora oo inta gobolada Soomaaliland buu ka shaqeystaa oo saacada ay afarta baabuur meesha jooga de baabuurta Soomaaliland bay kamid noqon baabuur qaran ka shaqeynaysa marka waxaan ku leenahay bilaadan saa looma sii foqo ugaas arrintaasina waa kugu ceeb dhamaan macal dhaqanka xaal degdeg ka bixi wasaaraddiisana waxaan ugu mahadnaqayaa horumarka qabatay anigoo Suldaan Maxamed Ibraahim Shiraa waxaan leeyahay xaal degdeg ka bixiya isagii inta ugaas kala socotay wax ugaas lagu bartay maaha ugaas iyo suldaan waa madax dhaqameed inay ka cadadka yiraahaan maaha waa dadkii dadka dejin jiray warkeenana aad baa loo sugayay baan ku leeyahay ugaas maadaama inuu ku cusubnay madax dhaqameedka marka meel haynaga dhicine waxaan ku leeyahay ka tanaasul hadalka xaalna ka bixi wasiirkana raali gali horumarka dalkana ka xumaanina way la shaqeynaa wasiirkeena iyo qarankeenaba uu hogaaminayo madaxweynaheena Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ilaahay cimrigiisa daayo wasiirkeena uu la shaqeynaa Cabdullaahi Abukar isna ilaahay ka raali noqdo horumarkiisana aakhiradiisa iyo adduunkiisaba ilaahay ha barakeeyo waxaan u leenahay anigoo afka madax dhaqameedka ku hadlaya arrinta xaal baan ka bixinay wasiir Maxamuud Axmed Khadar Xifo telefishinka caalamiga Kelson magaalada Hargeysa